Asalaamu calaykum daawadayaal kusoo dhawaada channelkeena Cadnaan Yaasiin. Warbixintan maanta waxaanu kaga hadli doonaa 10 xayawaan ee ugu yaryar adduunka. Inta aynu muuqaalkeena u gudbin waxaan idinka codsanayaa inaad channelka subscribe gareysaan, muuqaalkana share gareysaan si uu u gaadho dad badan. Kaalinta koobaad waxaa ku jira Royal Antelope. Royal Antelope waa qayb ka mid ah deyrada, waxaanu ka mid yahay deyrada ugu yaryar adduunka. dhererkiisuna ma dhaafo 30 sentimitir. Deyradan waxay ku nooshahay keymaha Afrika, waxayna cuntaa midhaha ka soo dhaca caleemaha geedka. Kaalinta labaadna waxaa ku jira bahalka loo yaqaano Chimlon. Chimlon waa qayb ka mid ah bahalkan loo yaqaano jirijiroolaha. Haddaba dhowaan ayaa la ogaaday jiritaanka bahalkan oo lagu arkay jasiiradda Madagascar. Dhererka bahalkan ma dhaafo 1 sentimitir. Kaalinta saddexaad waxaa ku jira xayawaanka loo yaqaano faraska badda. Faraska badda waxaa lagu tiriyaa xayawaanada ugu yaryar ee badda ku jira, iyada oo dhererkiisu dhaafin 1.5 sentimitir amba 1 sentimitir iyo badh. waxaanu ku nool yahay badda marka gunta loo galo 90 mitir. Kaalinta afraadna waxaa ku jira daanyeerka gaaban ee Mareykanka. Daanyeerkan waxa uu ku nool yahay dhulalka rooban ee leh cimilada dhexdhexaadka, gaar ahaan Amazon, iyada oo dhererka daanyeerkani gaadho 14 ilaa 16 sentimitir, miisaankiisuna gaadho 120 garam. Kaalinta shanaad waxaa ku jira bahalka loo yaqaano jirbal, af carabina loo yaqaano al-sharbuuc. Bahalkan haddaba waxa uu ka mid yahay xayawaanada habeenkii socda, waxaanu u yahay jiirka, waxaanu ku nool yahay saxaraha. Badanka maalintii ma socdo bahalkani, dhererkiisuna waxa uu gaadhaa 10 ilaa 20 sentimitir. Kaalinta lixaad waxaa ku jira raha yar. Noocani waa nooca ugu layaabka badan ee rahaha, isaga oo dhererkiisu dhaafin 7.7 milimitir, taas oo ka dhigan inuu ka yar yahay cidida bini'aadanka. Kaalinta toddobaad waxaa ku jira octopuska yaryar. Octopusku haddaba waxa weeye bahalkan loo yaqaano argoosatada. Octopuskani waxa weeye waa kii ugu dambeeyay ee la ogaado ilaa maanta ee ugu yar, waxaanu ku nool yahay badda weynta Hindiya iyo badda weynta Pacifica. Kaalinta sideedaad waxaa ku jira bahalka loo yaqaano alfank, waa qayb ka mid ah dacwada ku nool saxaraha. waxay ku nooshahay saxaraha weynaha iyo qaybaha waqooyi ee Afrika, waxaanu ka mid yahay xayawaanada sii dabar go'aya. Kaalinta sagaalaad waxaa ku jira bahalka loo yaqaano hamisterka. Hamisterku waa xayawaan leh sifooyinka bakeelaha iyo jiirka. Xayawaankani wuxuu ka mid yahay xayawaanada rabaayada ah, waxaana laga helaa Yurub iyo Ameerika. Kaalinta ugu dambeysa tobnaadna waxaa ku jira bahalka loo yaqaano jellyfishka amba qanaadiilul bahr. Bahalkani waxa uu leeyahay cidiyaha ciyaalka, waxaanu leeyahay sun dili karta nin weyn oo qaangaan ah. daawada haddii aad muuqaalka dhammaadkiisa soo gaadhay, waxaa kaa codsanaya inaad channelka subscribe garaysid, jalaskana furatid si aad ula socotid muuqaaladii ugu dambeeyay.